طيب بابا وطي رف كذا قحر كذا وضرت نوع من سوق عنا إنتنا برعق قاعدين يرو وسكي سامي أمينا فذوق ديس ينفتك ربح هذا أما كل يقبحها مول بان قادني ما لو توحد عليك قبل بان قادني فولانيسا waxaweyaan gawadhidii rafkii wuxuu ka dhameeyay taayirkii annagoo halkan waliba dhaafnay imka magaalada inuu joogno halkan yara marayna meel yar halkan wada ka dhada ayaa taayir noo baxay wadadan oo ah mid halbowlaa isla markaana isku xidha magaalada Burco degmada Oog iyo deegaanada loo sii maro ayaa ah mid burbursan taas oo dhibaato kala kulmaan gaadiidku marka ay ku safrayaan maalin kasta wadadan waxa mara gaadiid tiro badan oo rakaab sida marka ay dagaaladu dhacaan wadadan waxa mara dhaawacyada ciidamada qaranka ee ku soo dhaawacma dagaalada bariga iyo waliba dadka kale u baahan xaaladaha degdega ah kuwaas oo dhibaato xoogan kala kulma qaarkoodna ku nafbaxaan marka ay marayaan jidkani xukuumadihii kala dambeeyay ee Soomaaliland ayaa wax dayactir ku sameyn wadadan halbowlaha ah darawalada gaadiidka ee wadadan adeegsada oo aan la kulanay xilli ay ku safrayeen wadadani ayaa nooga waramay dhibaatada ay la kulmaan marka ay marayaan wadadani alwariyo waad mahadsantahay boqolkiiba boqol arintaan u baahnayn ee wax noo gaarsiiyo madaxweynaha cusub ayaa noo keento barteediba noogu keentay ilaahay marka hore khayr Allah ku siiyo marka labaad wadada anigu waa markii saddexaad aan ka hadlo oo aan u mariyo madaxweynihii hore Muuse Biixi Cabdi iyo kan maanta qabsaday aanu dooranay Ciro waa markii saddexaad aan ka hadlo wadada ilaa iyo hortaan waxaan u baxaa bariga xuduudda Soomaaliland baan halka u tagaa ilaa Oog Burcana xagga uma dhaafo dibta ugu xun ee wadada naga haysata waa wada xumo iyo gonnaan iyo baaba meel aan moodo inaan dawladba jirin nasiib darrada haysata qofka xanuunsanayaan halka ka soo qaadno jidkaaba isagoo kaliya xanuun qaba ama foolanaya sidaan huruquna qaab naftoon kaga dulbaxda wada xumada awadeed waxaanu halka baaq dheer uga dirayna horta marka hore dawladda cusub bari shanta madaxweyne hore dhisay galbeed waa madaxweyne balbari u soo jeeso shantii hore galbeed bay dhisayeen ilaa madaxweyne cigaal riyaale siiraayo Muuse Biixi intuba galbeed bay dhisayeen war maanta bal Ciro bari u soo jeeso waliba waxaanu leenahay oo aanu aad ula hadlaynaa war xildhibaanada bari ka soo baxay ee reer bariga warda waxaanu ku dooranay inaad wax noo doonto ee ina kuma dooran inaanu Hargeysa liita ku xabto xaqayaga doon oo dawladda nooga doono wadada waa inaanu helnaa boqolka Belegubadle ee hore boqolkii hore fayskii hore wuxuu ka dhigay Belegubadle kalamaad waa inuu noqdaa ilaa Oog ilaa Burco waa inuu noqdaa haddii aanu noqon xildhibaanada sawaynu dacaynaa dhowgaada haddaanu kuwii doortay nahay hana ceebsan TV-ga haba markaa ku xaytaan hana ceebaalsanina waayo waxaan inuu dooranay inaan wax noo qabataan oo noo hadashaan waxaan nahay xiriirkii u dhaxeeyay shacabka iyo dawladda waxaan idinku dooranay inaad xuquuqdeeda doontaan shacabka Soomaaliland oo dhan idinku ka mas'uula annaga ku dooranay shacabka kale kuma dooran wasiirada imika la doortay ee meesha jooga ama kuwa hore kale noqda ama wax bedela noqda horta TV-ga aad baan salaamaya waxaan leeyahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro madaxweyne waxaan ku leenahay madaxweynaha horena waan aragnaa adigana waan ku aragnaa madaxweyne waxaan leenahay wadadan bariga madaxweyne hoos soo eeg waayo jiida ah wadada qorlugud iyo taa meesha la yiraahdo Oog iyo taa Ceergaabo gadhaawacyada wadada la soo marinayo wada aragtaa malaynaya wariye wadada say baba u tahay rafkeeda iyo qaxarkeeda wada aragt dhaawac man soo qaadnaa intaana burcaq gaadhin yuro weskuy saamay ameena fadoo gudiis iyo nafta kaga baxda ama uu ku dhiig baxaa ma garat marka waxaan leenahay xildhibaanadii iyo wasiirada dooranay gobolkan u soo jeeda qaybta bariga waxaan leenahay mudanayaal aan leenahay wadada inaga hagaajiye wallahi dib badan baa naga haysta kulli waayeelka wanaga imikadan sida oo aad bay u cabanayaan cabashadana waxa kamid ah kulli waa wada aad u rafo hoosaan u baxaadigayno ee marba dhan gaadhigu la boodayo hadeer bacaan u iibiyo dadkaas oo waa huqaacayaan marka xaaladda badan baa naga haysata annaga dhalinyarada waliinta maalin walba maadaama aanu marayno wadadii habeenkii waxa nagu dhacday inaanu kaliya ka sixan weyno wadada bariga wixii Burco looga kaco bari wadadaas waa go'aanta aan kula kulana gud iyo wada baaba
iyo waxaan wadana baska yareynta la leeyahay taariikhda saan ugu rarayna wadana ma hayno markasta waxa la leeyahay wala sameeynaya idina sameeymayso tii silaayo iyo tii riyaale iyo tii musabixi inta waxa leeyahay wala sameeynaa taa baaba ay ahayd u dambe jirto madaxweynaha cusub waxaan leenahay madaxweyne wadada noo samee dad xanuunsanaya dad umulaya qaar uur leh mid dhaawacaba kala soo qaado dadkaasi meel la meel marna ma hayno wallahi qofkaba wadada soo baabiinaysa wasoo caafimaad qaar ka mid ah dadka rakaabka ee adeegsada gaadiidka dadweynaha ayaa ka sheekeynaya dhibaatooyin ay soo mareen xilli ay ku safrayeen wadadani iyagoona baaq culus u diray xukuumadda madaxweyne Ciro uguna baaqay inay wax ka qabtaan dhibkan ay ku qabaan wadadani hadda dalka wuu burburay wadooyinkii way baabeen dalka waxaan u doonaynaa madaxweyne inuu bari awood soo saaro inuu wadooyinka ilaaliyo bal wadada buraayo u dhaxaysa iyo inta iyo bal wadadaas sidaa weega war dalkii wuu burburay madaxweyne waxaan ku leenahay dalkii wuu burburay war dalka bari baan tagaal madaxweyne hore ayaa galbeed dhisayay madaxweyne waxaanu ku dooranay inaad dalka dhistaa inaad dalka hagaajisaa inaad wadooyinka eegtaa inaad ardayda wax bartaa oo dalku waa agoon weeyaan dalka inaad biidinka u haystaan war hadda waxaan ku leenahay Cirooy dalka galbeed ilaa iyo riyaale ilaa bixi galbeed baa la dhisayay bari ciidan uma jeedo war horta dalka miya codkuna bariba ka soo baxa war dalka miyaan ciid lahayn war miyadan islaam ahayn war miyadan annaguna go'sanaba doorisa waxa weeyaan anigu waxaan reer caynaba burcana de waan u adeeg tagnaa waan aadnaa markasta oo xanuunada umul baan qaadnay maalin waxa dhacday gabadh baan qaadnay foolanaysa waxa weeyaan gabadhii rafkii wuxuu ka dhameeyay taayirkii annagoo halkan waliba dhaafnay imka magaalada inuu joogno halkan yara marayna meel yar halkan wada ka dhada ayaa taayir noo baxay waxaan kugu uri taayirkii wuxuu ku haray meel fog de kadhadii gaarigii Ilaahay baan badbaadiyay marka waxaan leenahay wadada hoosa naloo eego ha naloo sameeyo caruurtu way matagaysaa gabadhii mar ruxantay way matagay caruurtina isku daraya dadkii waa wanaag matagaya waxaan leenahay ha naloo sameeyo wadada si naxariis leh baan u codsanaynaa inay buuxii burco bari ka xige soo eegto cadaalad noo sameeyaan marka haddaanu nahay bariga burco xukuumadu markay codka doonayaan hadday noo yimaadaan marka kalena ay iska tagaan taasi waa cadaalad darro waxaanu leenahay iyadoo aan wax kaleba naloo qaban wixii naloo qabanayo ha naloogu horreysiiyo wadooyinka waayo dadka samaynayna sadaqad baa ugu jirta gaadiidka cashuur baa laga qaadaa annaga cashuur baana laga qaadaa reer Somaliland baanu ka mid nahay haddana wax cid hoos oo isu eegaysaa ma jirto waxaanu leenahay wadada ha naloo sameeyo gaadiidka hoos loo eego dadka hoos loo eego aad iyo aad baad u mahadsantihiin dinkuna haddaanu nahay haddaad tihiin saxaafadda